Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Qaaday soo dhawaada. Waxaan isla qaadan doonaa udhaceena labaad aad ugu muhiimsan, waana casho runtii aad ugu muhiimsan. Fadlan haddaad cusub tahay janaalkeena subscribe inoo dheh sida aad u aragto casho walba aan soo dhigno halkan. Waxaan runtii xooga saari doonaa labadan qodob oo ah faa'iidada computerka uu leeyahay iyo faa'iidada uu leeyahay computerka ee maanta casharkeena ku saabsan yahay. Maxaa yeelay wax walba faa'iido iyo faa'iidada uu leeyahay. Marka waxaan kusoo koobayaa saddexdan qodob mid walba saddex qodob ayaan kusoo koobayaa. Faa'iidada computerka uu leeyahay waxaa ka mid ah wuxuu leeyahay high speed, wuxuu leeyahay xawaare aad u sareysa ayuu leeyahay. Number 2 storage, wuxuu leeyahay computerka wuxuu awood u leeyahay inaad wax aad ku keysato ayuu awood u leeyahay. wuxuu kale awood u leeyahay inaad internet ku isticmaasho ayuu awood u leeyahay. Waxaan qaadanay saddexdan qodob oo leeyahay saddex qodob oo ah faa'iidada uu leeyahay computerka. Haddana waxaan eegi doonaa qodobkeena labaad oo ah faa'iidada uu leeyahay computerka. Faa'iidada uu leeyahay computerka waxaa ka mid ah unemployment, wuxuu keenay ama wuxuu ziyaaday shaqo la'aanta. maxaa yeelay mar walba teknolojiyada ee ziyaada waxaa sii ziyaada shaqo la'aanta ayaa sii ziyaada. qodobka labaad no IQ, computerka aqli male, aqligiisa waa qofka userka oo isticmaalaha ah, qofkaas ayaa xukumaya computerka. Computerka shaqsiisa kuma shaqeeyo, qofka xukumaya qofka userka. qodobka saddexaad computerka wuxuu u baahan yahay needs power energy, tamar fara badan ay u baahan yahay, koronto ay u baahan yahay. maanta computer ma jirto, computer koronto la-aan shaqeynaya maanta ma jirto. marka computerka wuxuu u baahan yahay koronto fara badan ay u baahan yahay. Number 5 qodobkeena labaad wuxuu ku saabsan yahay noocyada computerka ee u kala baxaan. waxay u kala baxaan saddex nooc, laakiin haddaad baaris badan aad kusubiso waxaad doontaa computer fara badan. tusaale waxaa kamid ah micro, macro, kuwaas dhan waxaa lahaa computer kale, laakiin saddexdan computer ayaa ugu muhiimsan. oo ah number 1 supercomputer. supercomputer waa computerka adduunka ugu awood badan, waana computerka ugu dhaqsiyaha badan. inta badanna waxaa isticmaala kuwa satellite-ka oo ka howlgala ama ka shaqeeya ayaa aad u isticmaala. maxaa yeelay satellite waxay soo duubto waxay si toos ugu soo dhiceysaa supercomputer, si toos ugu soo dhiceysaa. marka supercomputer waa computerka adduunka ugu awood badan, waana computerka ugu dhaqsiyaha badan. mainframe computer waxaa aad u isticmaala kuwa degadaha ayaa aad u isticmaala. maxaa yeelay waxay calculationka ugu suubinayaan sida ay ku controlayaan daalada xawaaraha ee ku socoto. in badan waxaa loogu talagalay speedka iyo xawaaraha in lagu ogaado ayaa loogu talagalay mainframe computerka. tusaale hadda daalada wuxuu ku ogaanayaa daalada speedka ay ku socoto iyo waqtiga ay soo degeyso. marka in badan saas ayaa loo isticmaalayaa mainframe computerka. qaybta kaleete ama nooc kaleeta computerka aad loo isticmaalka badan yahay waa mini computer. mini computer waa computerka ugu raqiisan, waana computerka qof walba maanta oo qof walbana isticmaali kara. waa computer qof walba isticmaalka kaliya waxay u baahan tahay inaad barato. waana computer qof walba maanta iibsan karo. mini computerkan waxaa loo kala qabiyaa labo midkood, desktop iyo laptop. desktop waxaa lalahayaa midkaan koronto oo keliya ku shaqeeya, aan meel walba loo qaadayn, waxaa lalahayaa desktop. nooca labaad oo mini computerka waa laptop, waa midka hadda aan isticmaalayno. laptopna waxaa lalahayaa midka portable, waa midka portable-ka ah oo meel walba aad u qaadan karto, waxaa lalahayaa laptop. marka mini computerka marka adiga ayaa maanta iibsan kara, qof walba ayaa iibsan kara, qof walbana ayaa isticmaali kara. waana computer ugu raqiisan oo adduunka la isticmaalo waa mini computerka. qodobkeena kale waxaan ku arki doonaa sida computerka oo u shaqeeyo.
computerka wuxuu ku shaqeeyaa ilaa 3 qaab ayuu ku shaqeeyaa waana saddexdan qodob oo ugu muhiimsan oo computerka uu ku shaqeeyo waxa weeye number 1 input computerka in computerka wax la geli karo waa saddex shay ugu muhiimsan oo lagu qabo waa input processing output waa saddex shaqo ugu muhiimsan oo computerka uu qabto waa saddexdaas shay input inaad computerka aad wax geliso waxaa la input computer tusaale flash aad gelisay sawirada aad gelisay waxaad gelisay document aad gelisay kaas waxaa la input inaad computer wax aad geliso ayaa la hayaa input marka shaqada ugu processing waxaa la hayaa markaad videodaas waxaas aad gelisatay inaad computer ku habeeso waa shaqa computer oo ugu muhiimsan uu qabto waxa waaye input processingka inaad ku habeeso waxaas aad video oo qalad aad bishatay inaad ku habeesto oo processing aad ku sameyso qodobka saddexaad oo ugu muhiimsan ama shaqada saddexaad oo ugu muhiimsan oo computer qabto waxa waaye output inaad banaanka soo saarto ama banaanka soo bandhigto waa shaqada ugu muhiimsan oo qabto computerka soo output waxaa ka mid ah had shaashatan aan computerka isticmaalayno waa output maxaa yeelay adiga ayuu kuu soo bandhigay waxyaalaha computer ku jira kuu soo bandhigay waxaa la output input waxaa ka mid ah maanta tusaale ama keyboardka wuxuu kuu soo gelinaya qoraalada aad qortay ama text aad qortay inuu computerka u gudbiyo waxaa la input waa saddex shaqo ugu muhiimsan oo computerka uu qabto marka waxaa jirto aaladooyin oo soo gelinayo in computerka wax geliyaan input tusaale waxaa ka mid ah muuska ayaa ka mid ah muuskaad waxaa u isticmaalinaya inaad computerka wax ku doorato waxyaalaha gudaha ku jira inaad ku doorato kaasaka inaad dhaqaajiso ayaa u isticmaalaysaa outputna waxaa ka mid ah alada out device-ka waxaa ka mid ah tusaale printerka ayaa ka mid ah computerkana waxaa u isticmaalaysaa inaad balaanka wax usoo bandhigto marka processingkana wuxuu u dhexeeyaa inputka iyo outputka ay wuxuu si toos u aadayaa CPU si toos u aadayaa CPU wuxuu u dhexeeyaa inputka iyo outputka u dhexeeyaa marka mid walbaan qeexi doonaa input wuxuu yahay input accepts data wuxuu aqbalayaa xogta balaanka ugu timid ayuu aqbalayaa inputka waa maxay processkan maxaa waaye process waxa weeye transforms data into useful information wuxuu bedelayaa process wuxuu bedelayaa xogta datada wuxuu u bedelayaa info oo bixin dhameystiran oo la isticmaali karo uu bedelayaa useful information ayuu bedelayaa processka qaybta saddexaad ama shaqada saddexaad uu qabto computerka outputka ah outputka waa maxay outputka marka outputka display the result wuxuu soo bandhigayaa markaan useful information aan u bedelno processkeeno adiga ayuu kuu soo bandhigayaa marka resultka natiijada ayuu kuu soo bandhigayaa marka outputka isna waa shaqada kaleta oo computerka ugu muhiimsan oo qabto waa shaqadaasi maanta barashada computerka aad iyo aad ayuu u muhiimsan yahay waxaan loo jeedaa qarniga 21 waana qarniga aad loo isticmaal badan yahay teknolojiyada aad loo isticmaal badan yahay marka waxaa qasab ah inaad la qabsato aad teknolojiyada aad xoog saarto aad barato marka teknolojiyada sanad walba sanadka ka dambeeya wax cusub ayaa soo baxa marka waxaa loo baahan yahay inaad adina aad barato waaga casharkiina halkaas kusoo koobaya saxib marka halkan ayaa kusoo koobaya aad ay u mahadsantihiin